kooxda Gift Star ayaa ku guuleystay horyaalka tenniska 2022 kaas oo lagu ciyaarayay garoonka xarunta degmada Shibis ee gobolka Banaadir. horyaalka oo sanadkan ka xiiso badnaa kuwii hore ayaa waxaa ka qayb qaadanayay ilaa iyo 6 kooxood oo u diiwaan gashan xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska. kama dambaysta horyaalka waxaa ku dagaalamay kooxaha Gift Stars iyo Dekada oo ay kala matalayeen Sakariye iyo Xasan. dhinacyada ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed aad loogu riyaaqo waxaana goobta ku sugnaa mas'uuliyiin kala duwan oo ka socota wasaaradda dhalinyarada isboortiga, guddiga Olombikada qaranka Soomaaliyeed, qaar ka mid ah guddoomiyaasha xiriirada isboortiga dalka, haliyeeyo, macallimiin iyo guddoomiyaasha labada kooxood ee finaalka ciyaarayay iyo marti sharaf kale. xidigaha labada koox kala matalayay ayaa kala adkaaday sadadkii ugu horeeyay ciyaarta. bilowgii 6-4 waxaa ku adkaaday Xasan oo Dekada ka tirsanaa, halka kii labaad uu badiyay laacibka Sakariye oo ku adkaaday 7-5. waxaa la isla aaday 7 tuurasho oo kala bax ah. xidiga Sakariye oo ka tirsan Gift Star ayaana badiyay ciyaartii tie break wuxuuna ku adkaaday 7-5. markii ciyaarta soo dhamaatay waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska Saacad Cumar Geedi, isagoo sharaxaad ka bixiyay horyaalka oo sanadkan ka xiiso badan kuwii hore iyo goortii la soo bilaabay. dabtankii hadda socday kooxihii iyo ciyaartoydii waxay muujiyeen ciyaar fiican aad loogu riyaaqo. waxaan soo jeedinaynaa waxaan u mahad celinaynaa degmada Shibis garoonka tenniska oo noo yahay xiriirka Soomaaliyeed tenniska oo muddo ku ciyaaraynay 5 sano. waxaa iyo media oo ka socda Muqdisho cable waxaa la bixiyay abaalmarinada kala duwan ee tartanka sida horyaalka kaalinta koowaad, labaad iyo bilado loogu talagalay garsoorka, macallimiinta iyo ciyaartoydii kale ee horyaalka soo dhex muuqatay. Sakariye Maxamed Aweysa oo ah xidigii koobka u qaaday Gift Stars ayaa la hadlay Muqdisho Cable Sports. aad u mahadsantahay dareenkayga lama soo koobi karo. aad iyo aad u faraxsanahay maadaama aan ku guuleystay horyaalkayga labaad ee sanadkan. waxaa igu horeysay horyaal hore oo la qabtay 2018 maya macnaha waa liga badiyay kaas horyaal 3 horyaal ka qayb galay. hal waa liga badiyay, hadda kii labaad ku guuleysanayna kan waa laba waa ku guuleystay. sidoo kale Saciid Ibraahim Xuseen Buuna oo ah guddoomiyaha kooxda Gift Stars ayaa ugu mahad celiyay xidiga Sakariye guusha uu keenay kooxda maadaama ciyaar adag uu wajahay dhigiis Xasan oo matalayay naadiga Dekada. runtii aad u mahadsantihiin Muqdisho Cable Sports sida mar walba ugu heelantihiin isboortiga guud ahaan mar walbana u tabisaan waa wax qiimo leh idinka xiisaha ugu weyn u yeelay. mid labaadna waxa waaye guulaha sanadkan aan ku talaabsanay aan noqoto ciyaaraha kala duwan horyaalada ee Gift Stars dheelayso oo mid aad aan ugu qanacsanahay, aad ugu faraxsanahay, eena niyad nagu siinayso inaan halkeeda ka sii wadno dhiirigelinta isboortiga. runtii ciyaaryahanada ee Gift Stars sidaad u jeedaan waxa waaye dadaalkii la geliyay ay inta badan ka mari dhalinayaan. annagana waxaan rajaynaynaa waqtiyada soo socda iyo horyaalada soo socda sidaan si lamid ahna inaan mar walba ugu garab taagannahay, sida aan mar walba u horumarin lahayn ciyaaraha qaybihiisa kala duwan aan ugu muuqan lahayn. waxyaabahan ugu muuqanayna ee naqato isboorti dhab ah iyo ka muuqasho ciyaaryahan qiimo leh in markaas kooxdu matasho. sidoo kalena sida arkaysaa maanta oo kale ciyaarta dhicisay ciyaar oo saacad iyo ka badan socotay ahayd, ciyaar aad macnaha oo u adag ahayd, natiijo wanaagsan way ka gaareen ciyaartooyda Gift Stars. marka hambali ayaan leenahay guud ahaan naadiga taageerayaashooda oo noo muujiyay garb istaag. marka ciyaartaasna waxaan rajaynaynaa inay farxad ku dhamaato.